aniga Soomaalida way dareemi waayeen way fahmi waayeen maanta qabiil fiican kama dhashanin maanta qabiilkayga aniga wax ii qaban waaye war aniga ficayga dhan ganacsi ay sameysteen ficayga dhan qof walba ma qof Yurub aado qof America aado qof ganacsi sameysto game iyo adduunyo iyo lacag in wax loo sameeyo war Soomaalida aan ku dhex jiro aan ku dhex noolahay anigii fahmi waay nolosha Soomaalinimada maxay taraysaa markii Soomaalinimo wax iyo mataraysa intaan ka badan waa ku dhigtooda war ana hadaa wax ii qabanaysiin wax ii taraysaan waxa isiin kartiin si walaalayaal intaan ku badan afka ma xiran kari mana aamusi kari waxa ku aamusan waa qalad intaan ku badan afka ma xiran kari ma aamusi kari because wax walba waa iska indhitirtiin war Soomaalida waxa arkay qofkii maanta qada haasto aashan ugu dirtiin qofkii qada aasho ugu dirtiin Soomaalida qalad ma laha aniga qabiil langaab aha ka dhashtay qabiil ay dhala aha ka dhashtay qabiil baastir baa ka dhashtay maanta hadaa ka dhalan lahay habiye ama daarood ama dir hadaa ka dhalan lahay saasali qad qaadi lahay saas ila alhamdulillah ilaaha ma hadas iskal ilaaha ku shukrina wax kala asameyn karo mar alhamdulillah ilaahu iimaankayga ii qabooji ilaahu salaadaydi ugu hanuuni ilaahu diintayda damba qalad aa ka gelin ilaahu salaadaydi ugu hanuuni ilaahu qof Soomaaliya sakada bixinaayo oo iimaan qabtay ilaahu iga dhig ilaahu waxyaalaha qaldan iga xijaab ilaahu dadka aniga iwaalaayo oo maskaxdayga qaadayo oo 24 saac WhatsApp-ka warkaygu keenayo ilaahu saaxiibaha xuno aniga aan leeyahay ilaahu shartooda iga xijaab ilaahu iga xijaab dada maanta waxna ii qabanayeen waxna ii sameeyeen waxna ii tireenna maskaxdayga cuneen ii wareeriyeen sida ma milyan oo kale rabaan inay aniga ii waalaan aniga adduunyo ii ma soo herin waxna ii ma soo herin ilaahu dadkan shartooda iga xijaab ilaahu Soomaalida iga qabo ilaahu Soomaalida waa codowgayga koowaad ilaahu Soomaalida iga qabo wax ma ii ma tirtiin waxna ii ma sameeysan dadkiina waa igu dirteen waxa igaarsiiseen reer diinta waxaan ka sheegay igaarsiiseen maskaxdayda gaarsiiseen dhaawac maskaxdayda dhibaato u geysateen war Soomaalidan ilaahu iga qabo ilaahu Soomaalida cudur ala ka seenay alla ku rid Afrika cudur ay bool la dhahay waa ku rideen cudur hebel la dhahay waa ku rideen Soomaalida cudur ala ka seenin meel uu ku imaado alla ka seenay hidiya cudur kansar la dhahay ku rideen Mareykan cudur COVID-19 la dhahay coronavirus ku rideen Soomaalida ilaahu cudur aan la ka seenay meel uu ku imaaday iyo meel uu ka soo baxay daawo aan lahayn ilaahu ku rid Soomaalida ilaahan ka bariyo cudur aan la ka seenin Soomaalida ilaahu ku rid because aniga waa ay dhibteen waa ay nafta ii keentay meel aan iga fadhiisto malaha aniga waxaan go'aansaday nolosheeda inaan Nigeria ku dhameysto Nigeria aniga waxaan ka kala kulmi doonaa Allah ilaahu Nigeria caafimaad igu sameey ilaahu Nigeria ti oo diinteed ilaasata ilaahu iga dhig muslimnimo ilaahu iga dil dadka aniga gaalnimada ii saadinayo dadka aniga live iga soo furanayo lacagta iyo fiyuuska igu raadina walaalo idaafa aniga maanta hadaa qabiil laan dheere ka dhashan lahay mise qabiil ilaahay uu ogyahay ka dhashan lahay ina live soo furtiina sheegaysiin hataa nuuq ila ma dhihi lahayn ilaaha jareer iga dhigay ilaaha adduunku igu ciilay adduunka ku ciilanahay tii aan qira ii dhiman Allah og adduunka horta waa ku ciilanahay waa ku rafaade waa ku silcay ilaahu adduunkan wax ii dhaam ilaahu ii sahal ilaahu adduunkan waa ku rafaade adduunkan waa ku rafaade waxa ku haayana male waa ku silcay waa ku dhibtooday war adduunka nolosha adduunka waa nacay nolosha adduunka waa nacay I am stressed wax walbo aa sameey mis wax walbo aado ininka igu kalifeen war aniga garab isiya wax ii qabta business ii fura ikaalmeeya garab isiya war wax isiya ceeb ma war Soomaaliya nin maanta quraacaas soo qadahaas casho ugu dirtiin waa arkay war lacagta giftira aad bixisiin habeenkii meeqa milyan waa qof America joogo qof Canada joogo qof Europe joogo qof America joogo saxi marmaal la moogi wadamada Mareykanka jooga giftiga adduunka u dirtiin anigoo Afrika ku baahan oo waxna haysanin tolna qabin qaraabana qabin qabiilna qabin wax isiin la asantiin
nolosha Soomaalinimada inta ka badan maxay ii taraysaa Soomaali maxaa isku haysiin Soomaali Ilaahay waxaan ka bariyaa hadaa qabiil iisaan ku jirtiin maalin walba inaa baaba'din Soomaaliyeed dakam dum Ilaahu niga dhig Ilaahu baabi'i Soomaali faataxada umar hadaa qabiil iyo adduunyo because aniga qabiil ma haysto waa ciilanahay inaan nii habaar wax kale ma sheegi kari qorin hadaa ani kaliya qaata kubi kalena ma soo qaadanayaan Soomaalida Ilaahu eberkasi ani bas iga soo harsi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة يوم الواجب تنسود بهذا إن هل كيجا دعونا سوى يوتيوب channel كيجا دمان أمد الصوماليات أمد نوي محمد أمد دامن دونتو أمد وناق جعل أمد أصحاب تيجا وحني لي هاي هورتي you are come back you are welcome you are Nigeria I'm from Nigeria okay no I am Somali you are serious marka waxaan leeyahay in saa jeclahay goordhow haduu Ilaahay idmo ina Nigeria aad doonaan jeclahay oo Nigeria waqti aan ku soo qaadan doono waxaan leeyahay dhammaan inta channelkayga ku xiran inta asxaabtayda horta YouTube channelkan subscribe saara oo like dhaha comment dhaha share dhaha waxaan halkaan u soo fadhiistay inaan u digo digniin degdeg aasiyo والله يا كودات والله أنا هذا الولب عاده كلمة والب عاده مس هذا السكة أقادتين أنا جا بيكوبس الدنك أن أكون هلا هاي مانته وإلهي إكاني ومانت لحد عقب إسي مانت إفتين كان قروح ذا بدن ودن كان قروح ذا بدن أنفيرنا إندهس إسي والله بالله مانت أنا إنا خلط قالوا مس إنا الدين توحك شيء مربين إلى قفل بو بني آدن خلد وقلا قفل بو بني آدن أو دبك حارة خلد وكدعا I am serious خلد كوي كدعي أنا واك جود باي أنا إن خلد كس أجل إله اللي حسابته ما بريتو أذيقو مسلم أذيقو صومالي أذيقو بني آدن أذيقو أنا أوكل waxaa aniga sawirkayga u soo qaadatid naagta way gaalowday saasay noqotay I am serious gaalnimada la sheegay aqoon uma lihi gaalnimada la sheegay hadaa aqoon u lahaan lahay saasa noqona aniga ina TikTok soo fadhiista kama dhihi lahayn ila aqoon uma lihi okay ha isqaltin in walaalayaalow wallahi afka Soomaaliga ku hadlay aniga waa dhibsadaa because af Soomaali ina ku hadla aniga ma jecli I'm not in you are fine ما فهمتين marka waxaan leeyahay dadka aniga igu xiran horta xumaan ha iga sugina qaladna ha iga sugina aniga wadanka noloshayda aan ku qaadan doono aan degi doono waa Nigeria I love you too much Nigeria waa wadanka kali oo Afrikaan oo Soomaali aan ku badneen Soomaali saas aan tagnayn oo cayayaan aan jirin oo saa aan ka jirin Nigeria I am happy today noloshayda ku faraxsan Nigeria qalbigayga